asturo haba yaraatee malaha waayahay waad ogtihiin amar ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ayaa la amray ciidamo Ethiopiana inay qabtaan deegaano Soomaaliya kamida iyagoo aanan AMISOM ka tirsanayn waxa lagu yeeray ciidamadaasi in aysan hoos tagin sharciga federaalka Soomaaliya ciidamadu waxay weerareen dhowr magaalo oo kamida Soomaaliya ma wataan magaca AMISOM sharciga federaalka iyo ansixinta baarlamaanka kuma socon Ethiopiankii gardarrada u soo galay deegaano ay kamid tahay ka xandhaale ay kamid tahay awa ceeb iyo lama araga ka dhaca dhalinyaro tuulo joogta ayaa qaarna nolosha ku qabtay qaarna laayay dadka nolosha lagu qabtay oo inta badan aan aad u aqoon luqadda Englishka ayaa baraha bulshada lagu arkay iyaga oo tilmaamaya inay yihiin dad Ethiopian inta badan waxa jira dad beeriya runta laakiin warbaahinta xorta runta kama gabanayso caddayn ku salaysan askartaasi ay diyadoodii la soo bandhigay wiilal dhalinyaro ah oo ciidanka tababar aanan haysan ayaa militarigii farmaajo uu gobolada dalka ugu talagalay militariga Ethiopia loogu talagalay in xoog ay ku qabtaan magaalooyin laba wiil oo dhalinyaro ah oo tuulo joogta caawa qaarna dilay qaarna nolosha ku qabtay sidee looga dareemo marka fil Soomaaliya dagaalku markuu uu gaaray wajiga labaad anigu dagaal sukeeye kama hadlo inta badan kama faaloodo dagaalka sukeeye waxaan ugu nacbahay waa dagaal beela qabiil u dhaxeeya inta badan kama hadlo aniga laakiin muhiimadda ayaan ka soo qabanaya muhiimaddu waxay tahay federaalku inuu ka hadlo xaajada dhabta ah waxay iftiiminaysaa laba arrin ciidamadu markay weerareen kan xandhaale oo dagaalku ay faraha la soo galeen kow wax saameyn kuma laha Ethiopia labo amarku maaha dawladda Ethiopia amar ka soo baxay saddex ciidamadu waxay adeegsanayeen hub culus afar maleeshiyaad aan tababar haysan ayaa ciidamadii ceebay marka dagaalku markuu ahaa shalay iyo daraad dawladdu wax xanuun ah ay ka dareentay ma jiro laakiin maanta markii Ethiopiankii la weeqay fil Soomaaliya caawa lama seexan waxyaabaha kamida oo arinta ugu badan oo ku salaysan qaabka xaaladdu ay marayso iyo sida xaaladdu ay ku biyo shubanaysoba dawladda fil Soomaaliya waxay dareemaysaa caawa culays xoogan maadaama Ethiopiankii hal tuulo ay fashalaysan hal tuulo oo Soomaaliya kamida iska daa in Axmed Madoobe aadaan tuulo kamida Soomaaliya oo waliba xaduud ku taala oo aanan haysan ciidan taakulayn iyo dawo oo aanan haysan gurmad ayaa ciidankii quwadda lahaa ee loogu talagalay inay xoog ku qabtaan dhul badan oo Soomaaliya kamida galmudug ku jirta Puntland loogu talagalay Jubbaland loogu talagalay waa tii koonfur galbeed ay iyagu gacanta ku dhigeen Ethiopiankii waxa dharbaaxa la helay ciidamo tuulo jooga oo geeley ah oo aanan haysan wax tababaran intii aan ku jiray baaritaanka wararka anigu waxaan ahay wariyaha kaliya ee dagaalka sukeeye aan faafin dagaalada qabiilada u dhaxeeyana Sooma bandhigo waxaan u soo qaadanayaa warkan waa qaybta Ethiopiaanka kaliya quwadda Ethiopia waa kuwii loogu talagalay Axmed Madoobe inay soo qabtaan tuulo ciyaalka xaafadda jooga ayaa laayay caawa waxaa muuqanaya marka ciidamadii lagu tashanayay tuulo joogyaa laayay geeleydii laysay ciidanka caawa la dagaalamay Ethiopiaanka oo galinkii dambe wararka ugu dambeeyay aan idinkaga hayo kana xandhaale waxa dhacday in ciidamadii Ethiopiaanka ahayd qaar la qabtay qaar nolosha lagu hayo qaar iyaga la jarjaray waliba qaabka ay u dagaalamayaan tuulo joogii Ethiopiaanka dharbaaxada ku dhuftay wali kuma arag tababar noocan oo kala horta meesha lagu dagaalamayo derbi ma aha sar lagu gambanaya ma aha dhufays ma jiro meel banaana alla isku haray ciidamada tuulo joogga geeleyda ahaa waxay soo naaxeen kadib saddex dharbaaxo oo ku dhacday dharbaaxada koowaad iyo ka labaad anigu kama faaloonayo waa dagaal sukeeye kan saddexaad aan idinkaga sheekeynaya oo kaliya kan saddexaad Ethiopiankii soo galay waxa wararkii ugu horeeyay ay sheegayaan in ciidamada Ethiopiaanka lagu soo geliyo war aan waxba ka jirin laakiin anigu taama hubo ciidamada Ethiopiaanka amarka ay ku soo galeen oo xaqiijin karo waa amar lagu yiri qabta maamulada galmudug Hirshabelle Puntland iyo Jubbaland siiba ciidamada Ethiopiaanka waxa loogu talagalay inay gacanta ku dhigaan Jubbaland iyo galmudug laakiin dharbaaxadii tuulo joogii kan xandhaale ku sugnaa waxay candhuufta dib u liqeen inay weeraraan Axmed Madoobe horta caawa Axmed Madoobe waa fakaray caawa Axmed Madoobe dambe Ethiopian aadaya ma jiro Ethiopiankii tuulo joogu maanta ay gacanta ku dhigeen waxa la ii sheegay
dadka nolosha lagu hayo ee weli gacanta ku jira inaysan ahayn dadka la soo bandhigayo waxaa jira saraakiil Ethiopiana oo caana oo aan wadan astaanta ciidanka AMISOM ceebta fiiri meesha ka taagay astaan ciidan AMISOM dhalinyaro aan wadan oo Ethiopiana oo militariga Ethiopia kamida ayaa iyagii hubkoodii gacanta lagu dhigay tuulo joog yar oo dhalinyaro ah oo farakutirisa waxay u galeen dagaal mucjiso ah weligay dagaal lamida ma arag dhalinyaradu sida waxyaabaha yaab kala fiiri shargareeya dhamaantiin si ay barnaamijka u gaaraan dadka inta badan wararka aanan la socon arintan dagaalkan iyo wajiga labaad Ethiopianka qaabka loo laayay shaxdaan idinka siinaya shax lamida tuulo joogkaasi kuma arkin wali dhalinyaradaasi tababarka aanan haysan qaabka loo galay Ethiopianka idinka sheekeynaya qof kasta waxaan ka codsanayaa inuu shargareeyo waliba go'aanka Addis Ababa caawa ka soo baxay waxay culayska ka dejinaysaa Axmed Madoobe ma jirto ciidan Ethiopiana oo dambe oo dhulka Soomaaliya loo diray ma jirto ciidan Ethiopiana oo dambe oo ka gudbaya doolow xitaa kuwii doolow ka gudbayay inqilaab lagu soo rogay caawana waa la joojiyay waxayna ka bixi doonaan deegaano ay ka mid tahay deegaanada hadda ay ku sii socdaan oo dhanka Ethiopia dhanka Jubaland shirkada xiisaha leh oo aan anigu la yaabo waxa kamid ah fiidnaaminto kale ayay ciidamadii tuulo joogga deganaa deegaanka la yiraahdo kan xandhaale oo kamid ah deegaanada xuduudda Soomaaliya horta Ethiopiankii marka hore dagaalku waa looga baxay geedaha loo koray marka geedihii iyadoo la saaran yahay ayay Ethiopianku dagaalka soo galeen sida la og yahay waa afar gees inta badan markay dagaalka galayaan way luqayaan raaci koowaad iyo raaci labaad iyo raaci saddexaad iyo raaci afraad ayay ku soo galeen aaga marka ay soo galayaan si isku weera ayay u galiyeen marka Ethiopiankii gudaha ku jira dhammaan ciidamadii gudbay iyo teknikadii ay wateen hub walba ay wateen caawa waxa gacanta ku haya maleeshiyaad deegaankaasi ku sugan oo markii hore la soo weeraray ciidanka Ethiopianka maanta nolosha ku qabtay waa geeley hadalkayga aad u dhageyso awoodii militariga Ethiopia kuwa jabiyay waa geeley waxa jabiyay dadkii ariga raacay waxa jabiyay dhalinyaro tuulo jooga oo aanan hadafkoodu ku salaysnayn wax kale caawa ilaa iyo galinkii dambe gurmad badan ayaa u yimid dhalinyaradii oo isla deegaanka ah isla markii ciidamadii Ethiopianka gacanta ayaa lagu dhigay qaarka nolosha lagu qabtay saraakiil waaweyn oo qaarkood waraysiga ay bixiyeen wax yar ayaanan amar u qabin inaan idin shido sabab la xiriira dhinaca siyaasiyiinta hawsha ku jira waxay ka sheekeynayaan aqliga diidaya waxaan rabaa markii inaad sii ogaataan sheekooyinka ay maanta u sheegeen maleeshiyaadkii gacanta ku dhigay hadda waa tuulo joog hadda waa geeley militarigii maanta geeley ajibisay awoodii maanta la rabay inay gacanta ku dhigto galmudug awoodii ciidanka Ethiopia ee la rabay in lagu qabto Jubaland awoodii militariga ee la rabay in cagta lagu mariyo maamul walba oo aan taageersanayn nabad iyo nolol dantu waxay kaliftay caawa inay geeleydu hubka ka aruriyaan sida loola dhaqmay iyo saraakiisha gacanta lagu hayo iyo waxa ay sheegeen wali waxa laga codsaday sawradooda inaanan baahin ilaa laga gaarayo waqtiga dambe ma aha sargaal dhalinyaradu ay waraysanayeen kaliya ma aha dadka la qabtay sargaalka ay dhalinyaradu waraysanayaan fiiri wiilka waraysanaya ma aha wiil tababar qaba ma aha waa wiil geeley ah oo aanan xitaa luqadda si fiican u aqoon waa wiil geeley ah oo aanan Englishka ku hadli karin fiiri wiil geeley ah ayaa militariga jabiyay ma yaqaan waxaan ka ahayn how are you ma yaqaan waxaan ka ahayn how are you inta kaliya way kooban tahay wuxuu kula hadlayo wiilka heerka awood darrada ciidanka militariga Ethiopia ka kara kartaa marka ciidamadu markay soo galeen saraakiishii la qabtay sheeko dhar ayaan idinkaga hayaa oo waliba aad la yaabi doontaan waxaan idin xaqiijinayaa amarka ciidanka Ethiopia ay dhulka ku galeen nasiib darro waxa ah inay qireen xildhibaano caara wasiirada dawladda ka tirsan oo qaarkood wadani nadiif ah ilaahay idinku dhaariyay magacyada la sheegay dadka qaarkood kursiga looga istaagaa Soomaalinimada si u yaqaan waa ragga magacooda la sheegay waa raggii yiri gala ciidamada Ethiopianka dhulka iyagoo aanan AMISOM mudan wallahi waa ooyaan marka calanka Soomaaliya arkaan wadaninimo darteed ilinta laga tirtiraa waliba qadarin iyo qiimay ku leeyihiin bulshada gudaheeda hadda waa dadkii maanta yiri gala
ciidamada Etoobiyaanka waan idila wadaagi doonaa waxaan rabaa qaybtii kale ee Jubbaland ayaan ku hormari doonaa tan waan u soo noqonayaa kana handaalay tan ka dhacday Ethiopia aawa dhig iyo fariiqaday waliba dhaawaca iyo dhimashada iyo nolosha kuwa lagu qabtay ee aan wax dhaawac gaarin ay maleeshiyaadku gacanta ku hayaan waxay gaadhay qayladhaanto Addis Ababa to Villa Somalia fadlan sheer garee kunka iyo dhowrka qof ee ku jira waxaan ka codsanayaa inaad sheer gareysaan ceebta caawa aan idinkaga sheekayn doono anigu xashaalillah kama hadlo dagaal sokeeye dagaal qabaa'il u dhaxeeya kama faaloonayo waxaan ka eegayaa oo kaliya sharcigaygu wuxuu dhigayaa qaybta nuxur kale inaan idinkaga sheekayo hayga sugin beel hebel asaas kuma dhihi doono waxaan kaaga sheekay doonaa nuxur ku anfacaya adigoo Soomaali ah ka weyn qabyaaladda ka weyn guul Soomaali kale ka gaaray anigu sharaf uma arko mana ka faaloon doono ciidamada Etoobiyaanka kaliya ku ekaa doona hadduu Allah idmo marka fadlan sheer garee si aad ula socotaan wadaniyiin xildhibaano waaweyn qadarin leh oo ay saraakiishu qireen wallaahi ceebta ka dhacday wax la soo koobi kara ma qof kasta oo Soomaali ahna ma filay qaara kursiga looga kaca war qaara culimo ah oo la qadarin jiray caawa ciidamada Etoobiyaanku waxay cadeeyeen amarka xildhibaan hebel wasiir hebel ilaahayow ceebta asr dhanka kale eegi doonaya tan waan ku soo noqonaya sheer garee si aad dadka kalena ay u gaaro barnaamijku uu koobnaan doona mar dhawaan ka baxaya si marka dadka ay u daawadaan dagaalkan kan xandaalay waxaan idinka codsanayaa inaad sheer gareysaan sida ay wax u dhaceen ayaan mid u dul istaagi doonaa Axmed Madoobe Bu'aale wuxuu u jiraa in ka yar 50 kilomitir Axmed Madoobe caawa wuxuu jiifaa meel u dhow Bu'aale 50 kilomitir ayaa u dhaxeeya deegaanka uu ku sii jeedo Axmed Madoobe ciidamadii Etoobiyaanka ahaa ee doolow ku soo socdana waa la joojiyay amar ka soo baxay Ethiopia amar yimid kadib markii maleeshiyaad tuulo jooga ay laayeen saraakiishii Etoobiyaanka ahaa gabigoodba waa la joojiyay inay dhulka Soomaaliya damba galaan waa kuwa ka baxsan ciidanka AMISOM ciidamadii marka la lahaa in maamul goboleedyada lagu qabto la doonayay caawa candhufta dib loo liqay ciidankii dib baa looga celinaya oo doolow ma gaari doonaan ninkii Axmed Madoobe ahaa marka arrinta naxdinta le aad u dhageystay ninkii Axmed Madoobe ahaa 50 kilomitir wuxuu u jiraa Bu'aale waxaa jirta marka boondo Axmed Madoobe ee qasab ku tahay inuu ka gudbo boondadii wax lagu sameeyay uu garan maayo cidda qarxisana garan maayo boondadii yaa la jaray waxaana la ii sheegay warkaas waxa laga yaabaa inuu isbedelo waan ka cudur daaranaya hadalkayga aad u dhageyso waxaa la ii sheegay in ciidamada marka ay ku sii dhawaa Axmed Madoobe 50 kilomitirna uu u jiro Bu'aale ayaa maleeshiyaadka argagixisada loo fududeeyay inay boondo laga ilaalinayay ay tagaan waliba boondadaas inta badan duulimaadka ciidanka cirka Kenyaanka ayaa ka hor istaagi jiray mar walba inay boondadaasi tagaan laakiin yaa fududeeyay yaa waayo qofka qariyay oo ciidanka u suurta galiyay inay boondadaasi jaraan Allahu a'lam laakiin anu garan maayo balse warar lagu kalsoonaa karo waxay sheegayaan in ciidamadu ay jareen maleeshiyaadkan kala jeeda shabaab inay jareen boondadii waxaana dhici karta boondada dartii inuu u istaago Axmed Madoobe balse 50 kilomitir ayuu Bu'aale u jiraa hadday boondadaasi ay sii go'naato saacadaha lagu soo aadan waxa dhici karta inay wax isbedelaan ciidamadii marka tartanka kula jiray Axmed Madoobe ee loo tartamay in mar qura gacanta lagu dhigo magaalada Bu'aale maxaa yeelay farmaajo iyo xulufadiisu waxay tartan ugu jireen Bu'aale inay gacanta ku dhigaan hadday dawladda dhexe Bu'aale qabato ninkii Axmed Madoobe ah final waa looga raynaya idinku waxaad u malaysaan tartanku inuu kismaayo yahay dhowr marna waan ka hadlay tartanku waxa weeye Bu'aale cidii gacanta ku dhigta hadduu farmaajo iyo xulufadiisuba ay qabtaan ninka Bu'aale taga ayaa madaxweyne ka ah Jubbaland ninkii Bu'aale qabta ayaa madaxweyne Jubbaland ka ah ninkii Omar ahaa wasiirkii duulista oo aad wada garanaysaan waa madaxweynaha qarsoon ee farmaajo uu Jubbaland la doonayo Omar waa madaxweynaha qarsoon ee Jubbaland la doonayo haddii Bu'aale la qabto marka Bu'aale waxa u tartamaya waa madaxweynaha Jubbaland iyo waliba dawladda dhexe nasiib daro dawladda dhexe laba awood ay ku tashanaysay caawa wax gacan lagu hayo ma jiraan ciidamadii dawladda ee la doonayay inay Bu'aale qabtaan tirada 3 markii loo dhigo 2 dhig oo kamid ah waa la waayay eebtan fiiri
ciidamadii dowladda ee la doonayay in bu'aala lagu qabto ma taleefona loo diray ma la laaluushay ma dhunteen meel ay mareen sheeg ciidamadu waxay isugu jireen waa tilmaamaya waa qasab waa dowlad qabiilayna ku dhisan tahay maadaama federaalku uu qabiil yahay waxaan ku qasbanahay ciidamada inaan tilmaamo ciidamada boqolkiiba 70 raxweynay ahayd boqolkiiba 70 raxweynay ahaayeen maalintii Abu Mansuur la afduubay 70kii 60 kamida waa la waayay 10 ka soo hartay 10ka markay ka soo hartay qaybtii raxweyn waxa dhacday tirada ciidamada dawladdu ay ku tashato waa laba qabiil haddaba dhigiina furan ciidanka dawladda federaalka dhexe ee Muqdisho fadhigeedu yahay laba qabiil ay ku tirsan tahay labada qabiil ee tirada ciidamada dawladda ugu badan waa Habargidir iyo Abgaal labadii beelood Habargidir iyo Abgaal inta badan xoogoodu waa ka baxay militarigii dalka ee la rabay bu'aale in lagu qabto boqolkiiba 70 raxweena ahayd 60 waa la waayay Habargidir iyo Abgaal la isku daray qayb kamida waa la laayahay lama hayo tiro lagu qaban karo bu'aale caawadan aan idila hadlay mana maqli doontaan militarigii maadaama uu soo noqday Ethiopia lagu tashanay Ethiopia la rabay marka inay doolo ka soo gudubto gado iyo jubbada dhexe ay qabato ugu yaraan ay kaalin ka qaadato xoreynta deegaanadaasi si loo geeyo madaxweyne la mid ah lafta gareyn magaalada bu'aale caasimadda Jubbaland nasiib darro caawa Ethiopiaankiina waa diiday inuu dhulka soo galo sababaha uu Ethiopiaanku u diiday inuu dhulka soo galo waa Ethiopiaanka ka baxsan AMISOM hadalkayga aad u dhageysta Ethiopiaanka wata astaanta AMISOM maaha waa Ethiopian amar madaxweynaha ku socda ee qabanaya dhulka Jubbaland Galmudug iyo waliba Puntland waxay moodaa in laga aamusan yahay iyadana si gooniyaan barnaamij uga diyaari doona ciidankii dhulka ee AMISOM ka baxsanaa Ethiopiaanka ah caawa waa laga celiyay sabab la xiriirta tuulo dhalinyaro tuulo jooga fashiliyay saraakiisha Ethiopiaanka saraakiishii ugu sarreeyay gacanta lagu dhigay ilaahay idinku dhaariye dhowr iyo 20 sargaal gacanta lagu haya qiimaha marka waxa rabaa inaan fasiro sargaal gacan lagu dhigo intuu tilmaam ahaan maxaa lagu tilmaami karaa sargaalku waa qofka ugu dambeeya ciidamada hadalkayga dhageysta ma aha abaanduule sargaalka hogaaminaya amiirka hogaaminaya ama ninka hor kacaya ciidamada waa qofka ugu dambeeya ka waran ciidankii awooday inay gadaalna tagaan horena tagaan ka waran dhowr iyo 20 gacana lagu haya magacyo saraakiil waxay sheegeen xildhibaano dawladda ka tirsan waxay sheegeen wasiirro dawladda ka tirsan sida darteed ciidankii doolow la rabay inay yimaadaan dibaa loo celinaya si ugu yaraan Ethiopia ay sabab ugu keento laba arrin darteed ayaa amarkii ku aadanaa in ciidamada Ethiopiaanku ay qabtaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed loo soo gabagabeeyay laba arrin darteed arrinta koowaad qabaa'iladii Ethiopiaanka ahaa ayaa isku dhacsan waana qasab ciidamada Ethiopia inay kala dhaxadiyaan ugu yaraan qabaa'ilada Ethiopiaanka ee gudaha jooga qabiil walba oo Ethiopian ka tirsan ciidanka dawladda waa inay amniga sugaan ceeba ka dhacday gudaha Ethiopia sida darteed ciidamada Ethiopia waxay yiraahdeen farmaajo waxaanan AMISOM ahayn ma ku hayno sida darteed Axmed Madoobe wuxuu noqday dibi deysan caaw meel iyo cid celisa malaha ninkii Axmed Madoobe ahaa cid ka hortagto caawa looma hayo Ethiopiankii lagu tashanaya doolo waa ka laabtay Ethiopiankii lagu tashanaya maleeshiyaad tuulo jooga ayaa nolosha ku qabtay fiiri ma aha inay xabad kaliya uga hortageen ciidanka maanta weeraray AK47 wateen fiiri qaarkooda bistoolada ku dagaalamay marka ceebta dhacda awgeed ninkii Axmed Madoobe waa fakaday gudihii Soomaaliya aan u soo laabto marka kan ka xandhaale aan u soo laabto waa magaalo runtii maanta dharbaax xoog leh ka dhacday xashaalillah dagaal sokeeye kama hadlo xashaalillah guul uma arko laba qabiil oo wada dagaalamay mana ka faaloonaya qaybta Ethiopiaanka ayaan ka hadlaya kama sheekeynayo guulna uma aqaano mana faahfaahinayo arrin ku aadan laba qabiil oo Soomaaliyeed waa labadeeda gacmood sida darteed faalladeedu Ethiopiaanka bas ay ka sheekeynaysa raalli ahaan Ethiopiaanka laba arrin ay dagaalka ka xandhaale waxay ku soo galeen laba arrin mid anigu ma hubo laakiin waa la ii sheegay mid waxay tahay in loogu sheekeeyay qayb kamida dadka dagaalamaya inay yihiin al-shabaab anigu warkaas ma hubo laakiin waxaan hubaa oon idinla wadaagi karaa ciidanku inay u socdeen
dhulka deegaanada oo dhan in gacanta lagu dhigo kow dhulka deegaanada galguduud waxa ay nabad iyo nolol u haysataa inay tahay dhulka Soomaaliya ayba ka degi la'ahay galguduud waxa la yiri galguduud waa meesha kaliya galguduud waa meesha kaliya Soomaaliya ay ka degi la'ahay sida darteed ciidamada Itoobiyaanka waxa loogu talagalay dhulkaasi si xayndaaba inay ula wareegaan si awood loo naaqusiyo ugu yaraan awood loo naaqusiyo laga hortago isbedel ibaakara ninkii Ahmed Ducaale Geele Xaaf ahaana wallahi doorow caawa ciyaaray dadku inta badan ma filayn inta aanan dagaalada Itoobiyaanka imaan wuxuu sameeyay military degdega ayaa dhuusamareeb cadaado dhulka galmudug oo dhan laga soo ururiyay shiiqaal wacaysle murusade daa'uud daraale ahada duduble iyo dhammaan koob iyo 10 qabiil ee galmudug degan ayaa ciidamo laga ururiyay military ahaa oo la yiri markii hore inay kala dhex galaan laakiin isbedel ayaa jiray ninkii Xaaf ahaa dagaal hoose dagaal sakiinad oo hoos ka bilaabay dagaalkii hoose oo ku waday ilaa heer ugu dambayn ay dhalinyaradu niyad yeeshaan militarigii la ururiyay koob iyo 10 qabiil ee degan dhulka ee galmudug la isku yiraahdo inta aynan gaarin maleeshiyaadka soo afjiray nasiib darro xildhibaano aan waxaan ka xumahay wasiirada dawladda ka tirsan waliba waxa yaab leh in wasiirada dawladda ka tirsan Itoobiyaanku uu tilmaamo xildhibaano dawladda ka tirsan Itoobiyaanku uu tilmaamo Itoobiyaanku uu qiro dad wadaniyiina hadda markaan leeyahay wadani waxaan kala jeedaa dad waxaa jira astaanta calanka dadka ka ooyisi jira weligood iyo allahood wallahi dadku way ka ooyisi jireen qaarkood waxay gaareen heer bilado lagu siiyo Soomaali jacayl laakiin caawa ceeb aan dhacay weligeed qof xildhibaan kuma fududaan laakiin nin sargaal oo Itoobiyaan oo gacanta lagu dhigay ayaa xaqiijiyay qayb kamida dadka amarka bixiyay inay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waliba nin caana oo aad wada garanaysaan oo waliba si fiican dadka u yaqaanaan waliba ka tirsanaa jiray hal door dadka ka wada ilmaysiinaya lambar 1 hogaamiyuka ah ceeb tacaal waayahay laga yaabay dadka qaar inay yiraahdaan wasiirka beena laga sheegaya laga yaabay dadka qaar inay yiraahdaan xildhibaanka beena laga sheegaya laakiin adaa laga rabaa inaad difaacdan laga doonaya daawade waraf iyo shibir maxawada kulmiye wasiirka dawladda ka tirsan hadii been laga sheegayo maxaa xukuumadda aamusiyay haddii xildhibaanada been laga sheegayo maxaa aamusiyay xildhibaanada dawladda haddii xukuumadda qayre been laga sheegayo ra'iisul wasaaraha maxaa aamusiyay haddii dawladda federaalka laga been abuurayo maxaa aamusiyay madaxweynaha haddii laga been abuurayo wasaaradda amniga dawladda Soomaaliya wasiirka amniga maxaa aamusiyay waxa la rabaa in aqligaagu u shaqeeyo haddii lagu yiraahdo dawladda waa laga been abuuraya wasiir Itoobiyaan la shaqeeyo ma jiro xildhibaan la shaqeeyo Itoobiyaanka ma jiro hal su'aal ayaa meesha taagan xildhibaan hadlay ma jiro shib xukuumadda qayre soonay xirtay waa soomeen ma bahadlayaan qayre xafiiskiisa warqad kama soo bixin madaxweynihii warqad tacsiyeyna iyo kala dhaxgalid kama soo bixin sanataradii dalka oo aad ogeedeen inay gobolada maamulaan anigu laba ceebba inaan ummadda u sheego waa qasab waana xaqiiqo dawlad aamusan ma hirgelayso in beena laga sheegayaa la yiraahdo dawlad dhiig shacab oo masaakiina oo dagaalamay u tacsiyeen weysay laga yeeli maayo waxaan rabaa marka dhowr tusaale inaan siiyo xildhibaanada iyo wasiirada intaan u guda galin ceeboobay oo caawa idin wadaagi doono ceeboobay oo aan hubo in dad badan ay la yaabi doonaan warqad loo qoray mursal oo la qoray 5 maalin ka hor dagaalka intuusan bilaaban ilaa hadda waxa la ii sheegay xafiiska in emailka markii la furay lagu qoslay waa la isku dhibay yaa soo qoray mataqaanaan nabadoon kamida beelaha degan galguduud soo qoray xubnaha dawladdu wuxuu ku yiri mudane gudoomiye baarlamaan hee si uu miskiin u yahay mudane gudoomiye baarlamaan hee waxaan ka rabaa nin xildhibaana na dhibay walaalow naga qabo dacwadaasi golihii baarlamaanka oo kiyaale madow ka gashtay xubnihii garsoorka iyo dembi baarista dawladda oo kiyaale laba jeer xirteen xataa laba oo kiyaale xirteen cid uga jawaabtay nabadoonkaasi ma jiro nabadoonku barnaamijkaygu waxa xaraan ka ah qabaa'il laguma sheego dagaal sukeeyana ma faafiyo dagaal sukeeyana laguma buubuuyo
Soomaali la dagaalana natiijadiisa waxba uma arko sidaa darteed nabadoonka intaasaan magaciisa ku ekeynaya waxaan rabaa marka dagaalku markuu dhacay kadib dowladda wejiga koowaad dadka deegaanka lagu xasuuqay wallaahi billahi ina tacsiila diray hal warqad oo dowladda ka soo fakata xataa ma jirto dagaalku labada dhinac waad ogtihiin gari laba nin kama qosliso dhinacba maray u weecanaysay labadii dhinacba lagama hadlay nasiib darro labaad wasaaradda amniga warqad ka soo baxday oo arrinta lagu joojinaya ma jiro nasiib darro saddexaad wasaaradda arrimaha gudahana haba yaraatay shib nasiib darro afaraad war ceebtaan arka 1 2 3 4 nasiib darrada koowaad wasaaradda amniga kama hadlin nasiib darrada labaad wasaaradda arrimaha gudaha kama hadlin nasiib darrada saddexaad xafiiska ra'iisul wasaaraha lagama hadlin nasiib darrada afraad madaxweynaha xafiiskiisa shib afar ceeb anigu meelan geeyo ma aqaan waxaan markaa micnaheedu noqonayaa haddii afarta ceeb laga jawaabi waayo dowladdu uma diiwaan gashno dadka deegaankaas aan dhihi karaa marka kadib waxaad dhihi doontaa war waa ceeb dowladda saasaa dhihin waa dowladdii Soomaaliya iyo arrintaana inay iskeeneen adaa lagaa rabaa saraakiishii marka gacanta lagu dhigay 24 saac kadib ay hadli doonaan 24 saac kadib ay hadli doonaan waxaa la ii sheegay marka waxay soo wadaan wasiiro iyo xildhibaano wallaahi inaana been idiin sheegayn saraakiishii gacanta ku dhigay ee dablaydii ahaa caawadan aan idinla hadlayo telefoonna u dhacaya maxaa la leeyahay mataqaanaa lacag sheegta Itoobiyaanka deegay rajada aad leedihiin maxay tahay marka caawa waxaa la leeyahay lacagaa la duldhigay oo la yidhi ciidamadii aad qabateen iyo saraakiishii daaya intaysan la hadlin warbaahinta telefishinadii oo dhanna waa la wacay TV baahi doona arrinta Itoobiya haddaad aragtaan dib dambe ha ii daawanin telefishin soo bandhigi doona ma jiro telefishin ka faalloo doona ma jiro warbaahin loo kala oo ka hadli doonta ma jirto idaacad faalla ka bixi doonta ma jirto ugu dambayna caawa ilaa iyo 24 saacada loo qabtay inay saraakiishu hadlaan ka hor arrinta milyan ay ka bilaabatay 1 milyan haddii la sii hadlo 2 milyan 3 milyan waxaan u malaynayaa marka in la iibsan doono haddaysan waxba isbedelin dad ku dhadhow dadka gacanta ku haya ciidamada Itoobiyaanka waxay ii sheegeen in soo qabashada kaliya aysan ahayn dhammaan dhulkii ay ka soo duuleen oo dhan waxaa la wareegay maleeshiyada deegaanka maleeshiyada maanta qabatay deegaankaasi waa dad geel jira ah oo risaasta laga dabageeyay ciidamadii dagaalamay waa geeleydii maanta waxay gacanta ku dhigeen dhulkii isku weerka oo dhan Itoobiyaanka ceebta haysata ma maleysan kartay sidaa darteed Addis Ababa iyo caawa villa Soomaaliya idinkaga sheekeynayaaye wallahi waa arrin laga xumaado anigu ma jecli ummadda wax kan xinaya inaan u sheego villa Soomaaliya waxaa lagu canaantay ciidamadaasi villa Soomaaliya waxaa lagu canaantay in ay been u sheegeen awoodda deegaanka waxaa villa Soomaaliya lagu yiri maxaad u tiraahdeen waa dad jilicsan oo la jibi karo ceebay tacaal waxa la yiri maxaad u tiraahdeen deegaankaasu wuu ka laciifsan yahay deegaanadii kale maxay tahay sababta keentay in ciidamadii qaarna la dilo qaar la dhaawaco qaarna nolosha lagu qabto oo maanta dunidu fadeexad u tahay askari Itoobiyaan oo aan wadan astaanta AMISOM waxay villa Soomaaliya ballan qaaday in dadkaasi inta aysan la hadlin shacabka la iibsan doono mid kastaba lacagtiisu la duldhigi doono 20 milyan iyo wixii ka koreey askariga Itoobiyaanka gacanta lagu haya 20 milyan ayaa laga bixinay waadna arki doontaan ii qabta dadka hadda codadkooda aad daawateen waa inta ciidamadu ay soo wadeen ragga gacanta ku dhigay oo ahaa dad iska dhalinyaro oo tuulo jooga oo badankood aanan faallada si fiican u aqoon markay keeneen kadib saraakiisha qaarkood xildhibaanadii wataan teleefanadii wataan rag waaweyn oo wasiiro ah oo xildhibaano ah magacyadoodii wataan markaasay leeyihiin anigu xildhibaan hebel amarna soo siiyey xildhibaan hebel na soo siiyey xildhibaan hebel na soo siiyey wasiir hebel arceebay taca wallahi wasiir iyo xildhibaan waxaa ku jira oo jiray calanka Soomaaliya dirtii waxaa ku jira xildhibaan caana oo dadku markay arkaan ay dhigeen la ilaaha illa allah yaa la aamina firi dadka qaar waxa dhigi doontaan war yaa ilaahay yaqaniyaan aaminayna marka dadkii ayaa nin wallahi buluuga calaamada buluuga markuu iska oo jira ku jira oo dhigi jira ma Soomaaliya inta maraysa arma Soomaaliya saas maantana hagista ciidamada Itoobiya ku ka Addis Ababa waxay ka fiirsan doontaa mar dambe ciidamada Itoobiyana amarka farmaajo in aan loogu dirin deegaanadii
waxaa caawa fashilmay Etoobiyaan dambe inuunan ku degdegin deegaanadaas waxaa caawa meesha ka baxay mar dambe dhulka galmudug inaan la aadin waxaa lagu fikira marka hadday reer galmudug san yihiin sida noqon karaan Jubbaland hadday reer galmudug tuulo yar ayna baabi'isay maanta Axmed Madoobe oo dagaalyahan weyn Axmed Madoobe oo dadka ugu dhin adaga maxaa laga kulmi karaa Ethiopia waxay ka fiirsan doontaa inay aado Bu'aale Ethiopia waxay ka fiirsan doontaa inay aado Jubbooyinka Ethiopia caawa waxay ka fiirsan doontaa dib dambe galmudug loo galo marka anigu faaladaydu Ethiopia ka basay ku saabsan tahay dagaal sukeeye kama hadlayo ceebta labaad oo dhacdaa waxay tahay ragga xildhibaanada ah iyo ragga wasiirada ah ee magacyadooda la sheegay oo waliba qaarkood la yimideen cadayn cad odayaasha deegaanka ama dhulkan deegaanada galmudug la isku yiraahdo waxay ballan qaadeen inay soo bandhigi doonaan saraakiishaasi oo xildhibaanada dawladda sheegaya ceebay tacaal waxay soo bandhigi doonaan wasiir caana oo magaciisu saddexan waxay soo bandhigi doonaan xildhibaan dawladda ka tirsan magaciisu saddexan anigu mid baan ka baqayaa haddii xildhibaanadaasi la sheego haddii wasiiradaasi la sheego dawladdu waxay weyn doontaa qayb ka mid ah kalsoonidii lafdhabarka ahayd waxay dawladdu weyn doontaa arrinta ugu adag ee maanta dunida ka jirta waayo xildhibaanada qaarkood la soo wado ilaahan ku dhaartay in la qariyo horta ku fiican tahay sababtoo ah war waa nin saqi ah markii hore nin wadani ah nin ummadiisa jecel nin ka yaxyaxoon jiray magaciisa la idin soo wadaa dhul wax yar markii Soomaaliya ka dhacan nin iska oon jiray la soo wadaa oo la dhigi doonaa waa ninka kaliya marka galmudug waxay maanta fashilisay hamigii ugu weynaa ee ahaa ciidamada Itoobiya in lagu qabto dhulka Soomaaliya waxay dawladdu ka fiirsan doontaa mar kale inay weerarto maamulada galmudug Hirshabeelle Puntland iyo Jubbaland waayo xildhibaan laga rabo iska daayay maanta tuulo yar oo galmudug ku taal hal tuulo ayaa caawa dhabarka waxay xijisay ciidamo ilaahay ku dhaariyay tan dagaal ma wallahi kan dagaal ma wallahi tan dagaal ma tan ma waxa lagu tashakara ma war geed saaran aaba iska qabto ciidanka militariga waa geelaya geedaha looga soo dagay waraa waxaan dagaal lamid weligay ma arkay afar jiho ayay ku socdeen ciidamada Itoobiyaanka isweer degan maaragtay inta lagu qabtay nolosh wallahi inay saxaabada reer Itoobiyaanka xabad ay ku rideen xataa ma jirto nolosha lagu qabtay badankood marka hadda caawa waxaa jira in ciidamada saraakiisha gacanta lagu hayo ee galmudug gacanta ugu jira mid walba madaxiisa waxa la duldhigi doonaa lacaga fara badan si aysan warbaahinta ula hadlin waxaan isku dayi doonaa aniga inta aynan haddii la iibsadana waa soo sheegi doonaa waliba waxaan soo bandhigi doonaa inta aan la iibsan xogtii ugu dambaysay 1001 jeer waxaan aad uga fiirsanayaa inaanan ka hor dhicin qaybta koowaad waayo ma jecli inaan noqdo qofka ugu horeeya been sheega waxaan jeclahay inaan noqdo qofka labaad ee runta sheega labo ibaro kama faaloodo dagaal sukeeye uma arko dagaal sukeeye guul Soomaali isku dhacday laakiin galmudug waxay dhabarka jibisay rajadii ugu weyneed ee Itoobiyaanka la doonayay inay gacanta ku dhigaan maamullo cadow ku ah nabad iyo nolol maanta waxay galmudug dhabarka jibisay rajadii Itoobiya ay ku qaban lahayd maamulka Jubbaland galmudug waxay dhabarka jibisay rajadii Itoobiyaanka ay ugu fidi lahaayeen waayo baydhabo tan ka dhacday ayaa la doonayay galmudug runta la rabaa in la sheego tan baydhabo ka dhacday galmudug la doonayay tan baydhabo ka dhacday Garowe la doonayay tan baydhabo ka dhacday Kismaayo la doonayay maxaa baydhabo ka dhacay cameraman wato militariga Itoobiya kamida oo sawir ka qaadaya xildhibaan codeynaya waxay ka dhacday baydhabo ciidamada Itoobiyaan oo xildhibaanada dhabarka dambe laga xijiyay oo mid walba dhabarka qora looga haayo baydhabo ka dhacday waxa la doonayaa inay Garowe ka dhacdo inay ka dhacdo Dhuusamareeb inay ka dhacdo Kismaayo sida darteed militarigii Itoobiya ee loogu talagalay dhulkaas inay qabtaan maleeshiyaad geel jira ah ayaa gacanta ku dhigay haddii marka maanta maleeshiyaadkaasi ay dhabarka xijiyeen maxaa la filan karaa war Soomaaliya ceebta caawa taagan ma aha dagaal dhacay wax weyn ma aha saraakiil la kala qabtay wax weyn ma aha xildhibaano dawladda ka tirsan ayaa gacanta lagu hayaa magacyadoodii wasiirro dawladda ka tirsan gacanta lagu hayaa marka haddii la idin sheego oo magaciisa aad maqashaan waxaad dhihi doontaan hal maado waa been waa dadka nabadiidka ah dadka dawladnimada diidan ayaa yiri
adaa dhihi doona waa hubaa weliba haddaan kugu dhaara karaa inaad dhihi doonto waa been nabadiidkaa diidan inaad dhahayso waa hubaa sidaa darteed inta aadan magaca maqlin waxaan ku weydiinayaa hal su'aal wasaaradda arrimaha gudaha maxaa aamusiyey hoosaad aadinay wejiga ilaan jawaab ma haysid waxaan ku weydiin doonaa wasaaradda amniga maxaa aamusiyey hoosaad fiirinaysaa ilaan jawaab ma haysid waxaan ku dhihi doonaa ra'iisul wasaaraha maxaa aamusiyey hoosaad fiirinaysaa ilaan jawaab ma haysid waxaan ku dhihi doonaa madaxweynaha maxaa aamusiyey markaasaad hoos fiiri doontaa ilaan jawaab ma haysid sidaa darteed maxaa diidaya inaad iga dhegaysato marka ilaan xildhibaan hadlay ma jiro wasiirkii amniga dowladda soomaaliya waa aamusan yahay wasaaradda arrimaha gudaha ma tacsiyey ra'iisul wasaaruhu warqad xataa amar sooma dhihin wama dhihin waa in dagaalkaas la joojiyaa ma dhihin markaasaad hadhowta dhihi doontaa waa beeno waa la soo abaabulo nabaddiidkaa diidan ceebtooda wartaas waxaan idinka rabaa marka qof kasta oo arrintan jawaab ka keena hal su'aal ii weydiiyey waxaad weydiisaan war haddii been laga sheegayo xildhibaanka hogaaminaya maxay dowladdu u aamustay wallaahi wuu ka aamusaya weydii ra'iisul wasaaraha maxaa aamusiyey hoosoo fiirinaya weydii maxaa madaxweynaha aamusiyey ma kula hadli doono weydii su'aasha kale maxay kula tahay arrinta walaalayaal muhiimadda hadalkaygu dagaal sukeeye laba qabiil u dhaxeeyo xaashaalillah uma quurin inaan barnaamijkayga ka sheego etoobiyaanka keliyaan ka hadlaya caawa axmed madoobe waa badbaaday ciidan dambe oo etoobiyaan oo axmed madoobe lagula dagaalamaya ma jiro ciidan dambe oo dhul soomaaliyeed soo gelaya oo amisom ka baxsanna ma jiro ciidan dambe oo lagu handadayo galmudug hirshabeelle iyo weliba jubbaland ma jiro ma hadda alle ka sukow waxaa iskale dhallinyarada galmudug oo caawa aan u kala harin anigu galmudug hal faraan u aqaanaa waxaad kala jijiidaysaan idinka idiin taalla anigu galmudug hal xabaan u aqaanaa maamul goboleed kama faalloodo wax intaa ka baxsan galmudug waxaan u aqaanaa hal finkar 11 qabiil oo isbiirsaday ayaan u garanayaa sidaa darteed heerka galmudug maanta ay dhigtay ciyaal geel ilaalinaya soo qabtay nolosha ku soo qabtay wallahi ciyaal geel ilaalinaya ayaa saraakiisha soo qabtay xildhibaano iyo wasiirro ayaan idin ballan qaadayaa barnaamijkayga ku xiga ilaan anigu amar ma qabo waayo wasiiradii iyo xildhibaanadii saraakiisha sheegi doona fadlan indhaha ku haya saddexda saac ee nagu soo aadan iga warsuga oo indhaha ku haya warbaahinteeda wasiir waxaa hadli doona saraakiishii ani haddaan sheego waxaan noqonayaa inaan fududaaday ama inaad tiraadaan war waa beentis laakiin etoobiyaanka markuu soo fariisto ayuu ku dhihi doonaa xildhibaan hebel markaasaad xishood dartiisa hoos fiiri doontaa wuxuu ku dhihi doonaa wasiir hebel markaasaad adigu xishood dartii hoos fiiri doontaa markaasuu ku dhihi doonaa ninkaa iyo ninkaa iyo ninkaa ayaana hogaaminayay wuxuu ku dhihi doonaa ninkaa iyo ninkaa iyo ninkaa baa nagu yiri alla ceebta adduunka wuxuu ku dhihi doonaa adaa yaabi doonee bal marka koowaad mid iga ballanqaad si aad ula socoto anigu dagaal sokeeye sooma tabi doono qaybta Itoobiya basaan soo tabinaya si aad ula socoto magacyada soo socda xildhibaano waaweyn wallaahi waxaa ku jira xildhibaan iyo wasiir aan weligay isdhahayn inuu saan samaynayo wallaahi isma dhahay sababtoo mataqaana ilintu intay ka saarnayd xildhibaankaas waxa yar hadduu maqlo soo ooy jiray ilaaha wallaahi soo ooy jiray qaar xataa lama aamusi karin wasiirada qaarkood xataa waxaa la dhihi jiray soo qabta markaasaa cabbaar meel inta la gaala tirtiri jira jaalo wasiir hal noqo jaalo wasiir adduunka waa laga tagaa jaalo wasiir soomaalinimo waa soo noqon doontaa markaasuu dhihi jiray maxaan ka noolahay hadday soomaalisantaa maxaan ka maanta magaciisa lambar 1 oo ku jira waxaa jiri jira nin iska riyooda habeenkii riyoon jiro dhihi jira calanka Soomaaliya ku riyooday caawa ceebta lambar 2 oo ku jira wallaahi in badan oo kamid ah dadkuna wax badan ay isweydiin doonaan dagaalkan dan waxay ugu jirtay laba qaybood shacabku maanta waxay kala arkeen dawladdu intay ka samaysan tahay hadalkayga aad u dhageysta dawladdu maanta waxaad barateen hal maado wax kasta waxbaa laga faa'iidaa dhimasho iyo dhaawac anigu marna kama faalloonayo dad isdilay iyo waxas kama hadlo dawladdu inaysan idin jeclayn caawa lambar 1 iyo qora kow xataa inaa idin tiraadaan jeclaalahay kow iyo soo qora dawladdu inaysan idin jeclayn waxaa laga ogaan karaa laydima tacsiye waxaa laga ogaan karaa baaq nabadeed xataa laydima soo dirin hay-ad aanan haysan diinta islaamka baaq nabadeed ay dirtaa hay-ad aan diinta islaamka haysan xataa baaq nabadeed ay dirtaa ilaa idinku dhaariya fiiri hay-ad aanan islaam ahaynaad dirto baaq nabadeed markay aragto dad la dilayo islaamkuna waa waajib in dad islaama la kala dhex galo wasaaradda amniga adaa lagaa rabaa waxay u aamustay ra'iisul wasaaruhu adaa lagaa rabaa wuxuu u aamusay
wasaaradda arrimaha gudaha waxaa laga rabaa waxay u aamustay madaxweynaha xafiiskiisana aniga ma aqaan kombiyuutarka ka hadlaysan kombiyuutarka ma ka halaabay warqadda oo amarkan kombiyuutarkii qoraysa ma halawday adigu sheeg wax ka halaabay anigu garan maayo taasi waa leedin diiday isha ku hay hadduu alla ibo waxaa kaloo idiin soo wadaa oo barnaamijyadeeda dhowaan aad ku maqli doontaan hogaamiye dadkiioo jecel intuu aroos ku dhigtay muqdisho maalin cad ka dhaqaaqay hogaamiye aad dhihi jirteen waa wadani aroosoo muqdisho intuu ku dhigtay waa ninkaad dhihi jirteen jacaylow noo qaba darteed reer muqdisho aan u sheegaya jacaylow noo qaba darteedu gacanta wax guduudan ku xirtay eebay tacaal bal adduunyadan arkay ninkii jacayl uu idiin qabo calan guduudan ku xirtay idinkoo dhibban ayuu intuu muqdisho aroos ku dhigtay ayuu ka dhaqaaqay hogaamiyaha dhabta ah inaad barataan afiican ninka aad tiraadeen dhiiggeenna inta ka naxay ayuu calaamad guduudan xirtay waa ninka aad dhihi jirteen hal sano wallahi iskama bixinayo aniga hogaamiyahaas uma aqaano hogaamiye maanta jecel dadka muqdisho hogaamiye ummadda u diirnax uma aqaaneen ninkii sanad kadib meeshii laga rabay inuu reer muqdisho ka farciyo maalintuu calaamadda guduudan furay isla maalintaasuu aroos muqdisho ku dhigtay ilaah idinku dhaariye fiiriya ninkaad u ilimay jirteen isaga mooyaane wallahi qof kale ma jiro anigu siyaasigaasi meel aan waxaan ku fasira ma aqaan calaamadii guduudneed maalintuu iska bixiyey aroosuu fiiri ceebta adduunka fiiri ninkii loo ooyayey wallahi isagoo kale ma jiro caasimaduu qurxiyey caasimaduu duuliyey caasimaduu saan ka dhigay maalintii calaamad guduudan laydii xirtay sanad kadib calaamadii guduudneed muqdisho lala soo galay aroosaa la dhigtay dadku xishoonaya ma ilaahay ku dhari dadku xishoon hogaamiyo xishoonaya miya aaway dadkii uu dhiigga dartii calaamad guduudan u xirtay mase Michael Jackson ma calaamadii guduudneed ayaa jawaab looga dhigay aroos ma maantuu midnimo iyo hogaamiye ku noqon kara calaamadda guduudan maalintan dhiga gabadhan ku guursaday xamar ilaahay ku dhaariyo waa ninkii loo ooyi jiray waaya isagoo kale ma soo maray isagoo kale ma saas dhici kara magaca hogaamiyahaasi kullay inta garanayso way garanayaan inta aan garanayn ogaada calaamadda guduudan maalintii la furay wallahi anu garan maayo saddex qof oo u ooyisay wallahi saddexda qof ee ninkaasi u baahatay saddexda qof Soomaaliya maanta ma bedeli karto waxay ka mid noqon doonaan barnaamijyada aan iftiimi doono hogaamiye iyadoo la jacayl loo qabo loo sacabatumay calaamadii guduudneed intuu iska furay aroos dhigtay dhiiggii shacabka wuu leesidiisa dhiiggii shacabka oo daadanaya ayuu calaamadii Michael Jackson intuu iska furay oo aroos dhigtay maalinta kow oo arooska dhiganayeen dadku waxay u leeynayeen inuu samayn doono wax dadku ay jeclaysteen waayahay aroos dhigama xume goorma aroos la dhigtaa goormaysa reer muqdisho arooskaagu ay ka qayb geli karaan dhiigga shacabka weli daadanaya aroosaan dhigana adaa lagaa rabaa wuxuu ka mid noqon doonaa barnaamijyada aan soo wado magaciisa iyo dhammaan historigiisa kugu soo bandhigi doonaa waxaan soo bandhigi doonaa heerka miisaaniyadan idiin soo bandhigi doonaa dadka hogaamiyahaasi jecel ayaan idin iftiimi doonaa waxaan idin tusi doonaa mid kasta haddaanan caddayn ka keenin waxaan ballan idinkaga qaadayaa inaan ka faalloonayn aanoonan caddayn wadin ma imaan doono balkaasaan ku dhihi doonaa dhaawacii arooska fiil kun qof ku dhawaada dhimatay calaamad guduudanaan xirtay maalintaan furanayay aroosaa dhigtay yaa lagu dheelaa marka Soomaaliya بريال على مدي جوش لوجو تلاقي لو صوبنا جدونا وأنا شاكي دونا دو الله يدمر أرنتي سنوان صوبا داوضة أرنتا حلبنا ده جاميني يتوبيان كل الدليل كار كلا داوعي قدام بالله عن برامج وجو إن نكون صوبا حلبنا عيب تأدون كقطعي إن إذن صوبا وزير رو حد الله أمرين والله ورقد هرتي لتعليق قرية إن أنا لحالها لكن احترام waxaan u hayaa saraakiisha ciidanka galmudug oo ii ogolaaday inaan dhageysto codadkooda qaar kamid ah ii ogolaaday anigu qaybta kale iga damiyaan dhahay anigu qabiil ka raayay waxas anigu waqti ma gelin wax ay natiijo xaggay ka leeyihiin ma waxaan sameeyay Etoobiyaanka kaliya iishida Etoobiyaanka la iishiday marka la iishidana saraakiil iyo xildhibaanna la maqashay laakiin baa lagu yiri 24 saac sug ugu badnaan way barnaamijkayga xiga laga yaabay inaad kula socotaan fadlan daawade ha u daymalaan barnaamijkayga xiisaga ayuu leeyahay si aad ula socoto facebookgayga follow ku dhufo si fast ku dhufo insha Allah markaan ku leeyahay si fast ku dhufo micna kala maaha friends adoo i ah live-kayga ma daawo kartid
sabab inaad raadiso rabaa laakiin marka aad folowga ku dhufato si fast aad ku dhufato calaamad ahaan kugu soo dhacaya adeega iyo carabkayga marka adeegsanayo lahjada ma iga soo fakanaysa ana ugu talagalay waayo internetka dadkayga daawado kala lahjad daawaday si aad barnaamijkayga ula socoto laba arrin aad iga sugi doontaa natiijada dagaalka kan xandhaale iyo guusha galmudug waad iga sugi doontaa guusha maamul goboleedka galmudug aad iga sugi doontaan magacyada xildhibaanada amray in galmudug la weeraro ayaad la socon doontaan xildhibaanada iyo wasiirada dawladda ka tirsan ee amray in Axmed Madoobe la weeraro ayaa qaybta adduunka qaar aan soo wado ar xildhibaan aan soo wado wallahi ma celi karo wallahi xildhibaanka aan soo wado iyo wasiirka aan soo wado wallahi waa dhagay farwaay dhag iyo farwaay wallahi ad ayay culus tahay waxaan ka rabaa daawada marka si aad uunan ku dhaafin qaybta folowga ku dhufo facebookgayga kadib si fast ku dhufo adoo friendskayga offline aad la mid tahay wax aad kala socon karto malaha reer muqdisho hogaamiye dhiigga muqdisho aroos ugu bedelana waa ku soo wada daawada taasna ha iloobin si aad barnaamijyadeedu la socoto xog dhammaystiran oo nadiifa waan kula socodsiin doonaa guusha galmudug meeshay ku dambayn doonto waan kula socodsiinaya aamusnaanta shanta calaamadood ee dowladda Soomaaliya madaxweyne dhiig ummad Soomaaliyeed arceebay tacaal dhiig ummad Soomaaliyeed madaxweyne oo kale ka gashtay dhiig ummad Soomaaliyeed ra'iisul wasaare dhagaha ka dabooshay dhiig ummadda Soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha oo dhagaha ka dabooshay dhiig ummadda Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga oo wasaaradda amniga oo dhagaha ka furaysa dhiig shacabka Soomaaliyeed wasaarad ka hadashay ma jiro war hadoo xataa war dawladdu waan ogahay inaysan awood u lahayn inay dadka kala dhex gasho oo muqdisho ay joogto waan ogahay laakiin ugu yaraan madaxweynuhu waa inuu yiraahdaa waa ka xumahay dagaal sukeey xaram alayk dagaal sukeey xataa anoo wariye ah barnaamijkaygu ma qoor inaan qabiil hebel iyo qabiil hebel raaye iyo qabiil hebel asaas inaan dhoo xataa barnaamijkaygu ma qoor sidaa darteed xanuunka oo anigoo wariyaa uu igu hayo miyuusan dagaalka sukeey adigu kugu hayn war wasaaradda amniga miyaynan dadkan galmudug degan ee walaalaha ah ee bag iyo xabad iska tumaya dawladdu miyaysan shaqo ku lahayn war miyuusan wasiirka arrimaha gudaha ka soo jeedin war ceebta fiiriya galmudug madaxweynuhu waa galmudug ra'iisul wasaaruhu waa galmudug wasiirka arrimaha gudaha waa galmudug wasiirka amnigana waa galmudug raalli ahaad wasiirka amniga galmudug maaha waa hirshabeelle laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa galmudug ceebtan fiiriya dhiigga ay kursiga uu ra'iisul wasaaruhu ku matalayo waa galmudug waa nin ceelbuur ka soo jeeda ra'iisul wasaaruhu waa nin cabudu madaxweynuhu waa nin cabudu waa ka soo jeeda gudoomiyaha ee wasaaradda arrimaha gudaha waa nin dhuusamareeb ka soo jeeda intiba dhiigga dadka ay kursiga ku matalayaan ayay ka aamuseen ceb ayay ugu tahay marka anigoo wariye ayaanan jeclayn in dagaal sukeeye barnaamijkayga aan uga hadlo bacdama adoo wasiir ah adoo ra'iisul wasaare ah dhiigga ummadda aad matalayso haddaad ka aamusto waryaa waa sax wallahi dhiigga ummadda galmudug waxaa ka fiican kan Djibouti ha wallahi waa sax wallahi walaalaha Djibouti iyo walaalaha Eritrea ayaaba ka wanaagsanba dhiigan maxaa yeelay walaalaha Eritrea iyo walaalaha Djibouti madaxweynuhu waqti u geliya walaalaha galmudug tacsi uma quuramiya ilaahay ku dhariya war ra'iisul wasaare dadka aad matasho tacsi uma quurtid miya war mudana wasiirka arrimaha gudaha miyuusan tacsi u quurin عبي تعال intaas ayaan rajaynayaa dawladdu inay ka soo saari doonto wareegta dhaba saraakiisha ciidanka gacanta lagu hayana waa soo bandhigi doonaa ninka qaarta ahna waan idin soo bandhigi doonaa aktarkii koonfurta Soomaaliya aktarkii geerida reer muqdisho aroos ugu bedelay aktar lamida ebeedkay xataa ima soo maray aktarkii calaamad guduudan xirtay aktarkii yiri kun qofooda lagu dilay soobe sidaa darteed waa ka xumaaday aktarkii arooska ugu bedelay dhiigga reer muqdisho warniyo aktarkaas ma loo dul qaadan karaa ilaa ku dheeray aktarkii dhiigga muqdisho aroos ugu bedelay aktarkii meesha dadka lagu laayay calaamada guduudan intii iska bixiyay aroos ugu bedelay fiirisalada kugu raaxaysanay fiiri ninka aad jirtaan war isagoo kale ma jiro intuu calaamada guduudan idin furo aroos dhigtay khawran adna waa iska dhimanay nin meeshaan adiga war ilaahu noo soo celi kaasa ducuu qaba ducadu maxay noqotay halmaad ogow barnaamijkaygu qof kasta oo ummadaas qalad ka gala meel aliyo meeshu ka soo jeedo xogtiisa waan hayaa waana soo bandhigayaa aktarkaas waad iga sugi doontaan taariikhiyan nin lamida maba soo marinba juqraafiga muqdisho ma soo marin nin inta loo murugoodiyo loo ooyaya calaamadda iska furo aroos ugu bedelka
ninkaas nin wallahi waa laba xaniyood wallahi ninkii aktarka ahaa ee calaamada guduudan markuu xirto maxaa dhihi jiray wallahi billahi tala war ninkaasoo kale abadkeenna ma soo marnaa dhihi jiray waxaan anigu isweydiiyey calaamada guduudan waxaad u xiratay sow dadka muqdisho maaha calaamada guduudan waxaad u xiratay soomaha dadka aad tiri ma furayo sanad maxaad u guursatay maxaa arooskaada ku soo beegay maalinta calaamada guduudan aad furaysa isfooto intaa la eg weligaa maaragtay su u isfootanayaa ku dilayaba aroosaan gelayaa dhiiggii waa dhammaaday aroosaan gelayaa markaasaa iska sacbatumaysa adaan lagaa rabaa marka maalintii tacsidaada markaad aroos dhigto aniga adiga bas igaga jawaab fadlan barnaamijkayga soo socda waxaan rabaa inaad sii diyaarisato adoo tacsi ku taalla haddaan aroos dhigto ma ii sacbi lahayd mase waa iga murugoo lahayd ma i qiimayn lahayd mase waad iga murugoo lahayd adaa lagaa rabaa maalinta tacsida dhiganayso markaan aroos dhigto maalinta aad adiga ooyeyso haddaan anigu fantastiya dhigo waxaan kaa rabaa inaad maalintaas iga jawaabto barnaamijyadeedu xiisay leeyihiin laakiin mid baa NBE ah fiiro gaara midaa saaraya laba beelood oo Soomaali ah hadday dagaalamaan anigu xogtayda kuma saabsan anigu laba beelood oo Soomaali ah markay dagaalamaan barnaamijna kama diyaariyo kama faaloodo guul uma